16 arday oo ka mid ah ardayda macadka caafimaadka gobolka Sool ayaa maanta shahaadooyin la guddoonsiiyay kadib markii macadkaasi ay ka qalin jabiyeen. xafladda qalin jabinta ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Laascaanood, iyadoo halkaasi hadallo kooban ay ka soo jeediyeen qaar ka mid ah mas'uuliyiintii ka soo qayb galay munaasabadaasi. farxad gaar ah ay tahay macadka iyo jaamacaddu runtii waxa ma kala aha oo one team maamulkeeda ogtihiin oo ardayda jaamacadda ahaa waa wada shaqeynaa isweydaarsi baa naga dhaxeeya macallimiinta naga dhaxaysa qor-aanjooyada lagu kala qoraa la kala geeyaa idina aad waajibkiina gudataan idina amaanada ay ilaahay baray ee juhdiga la geliyay aamina xasan khasaaranina aamina xasan waxa abaalka ugu furan oo ugu wanaagsan idinku oo gobolka baahidiisa caafimaadkiisa qatra weyn iska jira muuse ma waxa weeye waa NGO waxa la sameeyay macmacaanka wadacay la fadhiya NGO dadka waalay NGO ayaa ummadii waalay caafimaadka baafiyay taana waxa uu tala muuse si institutionka caafimaadka uu dhisi lahaa oo roolka soo qaadan lahaa macadka caafimaadku runtii wuxuu buuxiyay baahiyii ay dadku qabeen oo runtii ahaa in la heli karo qof aad u tagto oo ku daweeya dawadii asaasiga ahayd u baahneed. waxaan kaloo aan halka ka qarayaa oo idin sheegayaa kadib markii aan ku sameeyay waxa la yiraahdo initial assessment-ga ardada dhigata macadka caafimaadka inay yihiin aqoontoodu tahay mid lagu kalsoonaan karo. ya insha Allah taala waxyaalaha uu qabtay waxa kamid ah inuu soo saaray arday nasisha dadkii daalay hore caafimaadka ku soo jiray arday nasisha ayuu soo saaray oo ay noo muuqato magaalada inay camimeen meel walba ay taagan yihiin goob kasta adeeg uga baahatana aad la kulmasid arday ka soo baxay macadka caafimaadka ama arday dhiganaya adeeg waxay kaloo qabteen inay daboolaan dhammaan baahiyihii caafimaadka ee looga baahnaa qof firfircoon oo dhalinyaro inuu qabto. macadkan wuxuu soo saaray arday runtii tayo leh xag akhlaaqiyad u dhisan oo runtii aynaan waxba ku misaali karin oo waxyaalaha laga sheegay macadka waxa kamid ah haddii ardaygu lagu arko waxyaalo dhaqan xumo ah in laga caydinayo meeshaba runtiina waa go'aan adag oo xaasima oo uu qaadan karo qof go'aan adag leh arrinkaana aamina xasan xuseen waa uga mahadcelinaa insha Allah taala. qofka bini'aadanku qabto waxa aasaas u ah wax shaygaas waa kalsoonida qofku hadduu isagu isku kalsooneen qof kale ma caawin karo haysta Hargeysa dhaaf Ethiopia dhaaf Kenya dhaaf Malaysia dhaaf haddaad rabtay inaad u aadid Yurub dhakhtar ilkood uu ku joogaa waxaan isticmaalaa waa aqoonteedii waa xog caafimaad ama meelaha noocan health post baa sodona iyana طبعا meelaha dadkii loo hore waqtigu waa ku yaraadkaaday qaar badan baa ka tegay anigu waxaan wajahdaa hadda baahidayna sugaysa masalan waxaa jira tuulooyinka gobolku waxay marayaan xamaya waa sheegeen degmooyinka marka la macalaasana lagu daro oo gobolka muddo badan joogay waxaa jiray arday fresh ahayd oo markaa ka qalin jabisay macadka qolyahan dibadda ka yimid inoo soo noqdayna maalin waxaan tusaale si aan ku yiri gobolku ka dhigan yahay carruur aad oo dhintay